waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo ayaa ku dhawaaqay musharaxnimadiisa soona gudbiyay laba codsi xubnihii lagu doortay Garbahaaray oo ka jawaabeen go'aanka gudoomiyaha golaha shacabka iyo Axmed Madoobe oo kulan gaar ah la qaatay Aadan Madoobe iyo xogo kala duwan oo ka soo baxaya ujeedka safarka uu Axmed Madoobe ku soo gaaray magaalada Muqdisho. daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona fadlan daawada hadana ku cusubtaana ku soo biro kamid noqo saaxiibada sida joogtada u helo wararkii warbixinada 24 saacan u baahino aragtidiina halkoosan ugu reeba muuqaalkana si share gareeya laagtiina waa inoo muhiim haatan ku soo dhawaada qodobada maqasheen oo faahfaahsan. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay musharax mar kale u taagan inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya isagoo shacabka ka codsaday inay mar kale fursad siiyaan. Farmaajo ayaa laba codsi uu kala diray xildhibaanada iyo shacabka Soomaaliyeed isagoo xildhibaanada ka codsaday inay codadkooda siiyaan si buu yiri aan wadajir ugu guuleysano. baaqa koowaad waxaan u dirayaa xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal waxaan ka codsanayaa in codadkoodu siiyaan si aan wadajir ugu guuleysano oo u horumarino dalka iyo dadkeena una sii socodsiino isbedel doonkii soo bilowday Febraayo 2017 ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. baaqa labaad wuxuu u diray shacabka Soomaaliyeed isagoo yiri meel walba oo aad joogtaan waxaa si qadarin leh idinka codsanaya inaad mar kale isku garab istaagtaan dib u doorasho ku dhisan danta shacabka. sidoo kale Farmaajo ayaa bogaadiyay hanaanka ay u socdaan howsha doorashooyinka dalka isagoo tilmaamay in doorashada madaxweynaha lagu aadiyay maalin muhiim ah waana si wanaag in maalinta doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lagu aasteeyay maalinta xuska halgamayaashii Israel taas oo direysa fariin cad oo muujinaysa sida dadka Soomaaliyeed ee uga go'an tahay dib u dhiska dowladnimada iyo soo celinta heybadooda qaran. haddaba anigoo tixgelinaya codsiga shacabka Soomaaliyeed waxaan go'aansaday inaan mar kale isku soo sharxo xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si aan u sii socodsiino isbedelka ka socda dalka ee miro dhalay ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. si kastaba hadalka madaxweyne Farmaajo ayaa imaanaya xilli si weyn looga dhuursugay go'aankiisa ku aadan musharaxnimada inuu mar kale u tartamo xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya. si kastaba waxaa la filayaa in loolan adag uu kala kulmo xubno kamid ah midowga musharaxiinta. madaxweyne Farmaajo ayaana ku jira xubnaha sida weyn loogu saadaalinaya inay u gudbi karaan wareegga labaad ama koowaad ee tartanka madaxtinimada dalka Soomaaliya. geesta kalena xubnihii lagu soo doortay Garbahaaray ayaa ka jawaabeen go'aanka gudoomiyaha golaha shacabka. waxaa soo jawaabeen xubnihii lagu doortay magaalada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gado kuwaasi oo vilan waa ku tilmaameen go'aankii uu gaaray gudoonka golaha shacabka. gudoomiyaha golaha shacabka ayaa go'aamiyay in xildhibaanadii lagu soo doortay degmada Ceelwaaq ay yihiin kuwa 4 sano ee soo socota baarlamaanka ku matali doona gobolka Gado halka xubnihii Garbahaaray aan waxba laga soo qaadin. Cabdiraxmaan Macalin Xuseen oo kamid ah xubnihii lagu soo dhisay Garbahaaray ayaa sheegay in go'aanka gudoonka baarlamaanka ay gadaal ka riixayaan dowladda shisheeye iyo dad la shaqeysta. wuxuu ku afgaafsaday in go'aanka soo baxay ay u maleeyaan in gudoomiyaha Aadan Madoobe uusan waxba ka ogeyn isagoo haddii uu wax ka ogyahay ka codsaday in awoodda dowladnimada uusan ku dulmin matalaada shacabka reer Gado waa sidoo hadalku u dhigay. waxaan cambaareynaa warqadii la sheegay inay ka soo baxday gudoonka baarlamaanka. waxaan aaminsanahay in warqadaasi aysan ka soo bixin gudoonka baarlamaanka laakiin haddii ay run tahay Aadan Madoobe wuxuu Soomaaliya geliyay mugdi cusub waana ka xubnahay tilmaamo dowladda shisheeye inaad qaadato ayuu yiri Cabdiraxmaan Macalin oo kamid ah xubnihii Garbahaaray. sidoo kale nimankan ayaana gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe ka codsadeen inuu ka laabto haddii uu gaaray go'aan ah in la tuuro xubnihii Garbahaaray la qaato xubnihii Ceelwaaq. go'aankan waxaa nooga muuqatay in Aadan Madoobe uusan dooneynin doorasho ee dalka uu qalqal cusub gelinayo. xildhibaan ayaan ahnay taas kawaantooba ayaan ku leenahay haddii lagu marin habaabiyo oo dowladda shisheeye iyo dad la shaqeeya ay ku khaldeen ka soo laabo qaladkan ayuu hadalkiisa ku sii daray Cabdiraxmaan Macalin oo kamid ah xubnihii go'aanka laga gaaray ee lagu soo doortay magaalada Garbahaaray.
si kastaba lama oga tallaabada ay qaadi doonaan xubnahan maadaama ay caddahay in warka lagu aqbalay xildhibaanada Ceelwaaq uu ka soo baxay guddoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya isla markaasna xubnaha Ceelwaaq ee xaadiri doonaan kalfadhiga ugu horeeya ee lagu dhageysanayo khudbadaha musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya. wahagaagi daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa Axmed Madoobe dhankiisa kulan gaar ayuu la qaatay Aadan Madoobe xogana waxa ay ka soo baxayaan ujeedka safarka uu ku soo gaaray magaalada Muqdisho. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. wafdiga Axmed Madoobe waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Jubbaland. madaxweynaha Jubbaland ayaana garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaa ku soo dhaweeyeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Marwa Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo dadweyne kale. sida uu fahansan yahay dalka TV Media safarka Axmed Madoobe ee Muqdisho ayaa la xiriira ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo ay naga xigto kaliya maalmo qura iyadoo la qorsheeyay in la qabto Axadda soo socota ee 15 May. Axmed Madoobe ayaa la filayaa inuu la kulmo xildhibaanada labada aqal ee ka soo galay Jubbaland iyo xildhibaano kale isagoo kala hadli doono ciidda ay tahay inay ugu codeeyaan inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya. inkastoo markii hore la fahansanay in Axmed Madoobe uu taageersan yahay Siciidani haddana warar soo baxay maalmihii dhawaa ayaa sheegay in hadda si hoos u dhisayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Axmed Madoobe ayaana rumaysan inay aad u yartahay rajada Siciidani ku noqon karo madaxweynaha Soomaaliya isagoo aan haysan taageero ku filan. Siciid Cabdullaahi Dani ayaa niyad-jab weyn kala kulmay xildhibaanada laga soo doortay maamul goboleedka Jubbaland iyo Puntland ee uu sida weyn iskugu haleynayay. kulan uu Dani ku casuumay 80 xildhibaan oo iskugu jira xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya laga soo doortay Jubbaland iyo Puntland ayaa waxaa ka soo qayb galay kaliya 33 xildhibaan, taas oo muujinaysa in sidii loo maleynayay aanu Siciidani taageero uga haysan xildhibaanadii labadii maamul goboleed oo uu isku haleynayay. docda kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa salaan iyo hambalyo ugu tagay gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo dhowaan ku guuleystay xilka gudoomiyaha golaha shacabka. madaxweynaha ayaana gudoomiyaha ugu ambaliyay xilka cusub ee loo doortay isagoona la wadaaga sida shacabka Jubbaland iyo bulshada Soomaaliyeed ugu riyaaqeen doorashadiisa. waa sida lagu yiriye war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Axmed Madoobe. sidoo kalena Axmed Madoobe ayaa gudoomiyaha uga mahadceliyay go'aanka lagu fasaxay xildhibaanada deegaan doorashada labaad ee Jubbaland si dadka gobolka Gado aysan uga harin doorashooyinka guud ee dalka ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland ee looga hadlay kulanka dhexmaray Axmed Madoobe iyo Aadan Madoobe. guud ahaan daawadayaal nageynta warkii oo aad kala socoteen janalka dalka TV Media fadlan daawada aad nagu cusub tahay nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada sida joogtada oo wararkii warbixinada 24 saacan u baahino aragtidiina halkaas nagu reebo muuqaalkana sii share gareeya laagtiinana waa inoo muhiim daawadayaal oo ku maasantiin daawashada iyo la socodka warka janalka dalka TV Media.